shan xaqiiqo oo hubaashii psychology ah yani shantan xaqiiqo mid kamid ah hadaad ku aragto waxba ka jira dib iskugu noqon hadii mid kamid ah asxaabtaada aad ku aragtana xagan ku mashan gare amaba waxaad tirahaa hebelow ma imaqlaysa qofkaasi waa qof xiriir u baahan ama jacayl qofka hore uga doon qof jacaylkiisa noqon hadaba saaxiibada inteena muuqaalkan u gudagelin waxaan ka codsanaynaa nagu soo biirto aad kamid noqdo asxaabta nagu xiran like iyo follow dheh oo kamid noqo asxaabta nagala socota dhanka YouTube subscribe dheh sidoo kalena share gare oo programkan gaarsiiya asxaab fara badan waxaan u baahanahay hadii shantan xaqiiqo mid kamid ah aad isku aragto ama qof saaxiibka aad garanayso halkan ku mashan gare hadii adigu aad isku aragtana gacanta taag maanta waxaan inoo hayaa shan xaqiiqo oo psychology ah يعني waa xaqiiqooyin jira oo la arkay oo la testgareeyay hadaba maxay oranaysaa xaqiiqada koobaad waxay leedahay haduu qofku qosolkiisu aad u bato qofkaas wuxuu dareemayaa cillo ka war adiga qosolkaaga ma badan yahay hadii jawaabtaadu haa tahay ama aad garanayso qof saaxiibka aad qosolkiisu badan yahay saaxiibka dib ugu noqo haduu qofku in badan hurdo ama uu seexdo waxa jira qofkaas wax badan oo ku mudan oo aad u qoranayo oo isleeyahay hurdada isku dhaafi iyo waqtiga ma jira qof aad ogtahay inuu saa'id hurdadiisa u badatay maalmihii ugu dambeysay qofkaas dib uga wardo hadduu qofku yahay qof aad u aamusan oo in yar hadla balse marka uu hadlayo uu aad hadalka uga gagaarsiiyo qofkaasi waa qof wax qaranaya isku day bal inaad fahamto waxa la yiraahdaa qofku haddii uu ka ooyo waxyaabo aad u fudud oo aan macno badan lahayn qofka saa'id buu qalbi jilicsan yahay qofkaas ilaali qalbigiisa inta badan caruurtu waxyaabaan macno lahayn ay ka ooyaan taasna waa sababta ay u qalbiga jilicsan yihiin hadaba xaqiiqada ugu dambeysay aad ka qosolka badan waxay tahay hadii aad aragto qofka ay ka cadhaysiinayso waxyaabo mala yacni aad u fudud qofkaasi waa qof xiriir u baahan ama jacayl qofka hore uga doon qof jacaylkiisa noqon lahaa shantan xaqiiqo ma noqotay mid adigu aad ku aragto ama qof saaxiibkaaga hadii ay jawaabtaadu haa tahay ku mashan garay saaxiibka hadii aad adigu tahayna gacanta kor taag